fanka Soomaaliyeed lacag ma laga sameeyo guri ma laga dhisan karaa because su'aashaas dad badan ay soo weydiiyay wallahi horta markan runta ka hadlo ma dhageystaniyo heesooga wallahi ma dhageysto waayo raab ma jeceli walaalo mulqaan sameysanahay iyo rasug ana hubina diyaartina way maqashaan u malaynaa aad baa horta ugu mahad celinayna kaameramanka oo ah Darisla kaamirada dhaqaaqada la gataas oo isku toosiniyo sabaa wax ku duubta so my brother Safwan waxaan malaynaa markii ugu horeysay oo ni YouTuber ku wareysanayo inkastoo Darisla iga horeeyay Darisla ma wareysan laakiin Darisla wada soconay wada soconay vlog laakiin wareysi ma hayn sida taada fikir duweyn waa shanta su'aal markii ugu horeysay qof YouTuber wareysto weeyaan Soomaan taasna waxay ka timid taageeraha igu xiran kaligeena maana waa taageeriin dabcan taageerayaashina maadaama ay codsadeen dadka bulshada magac ku leh ma ha ahaadaan fanaaniin ama ha ahaadaan YouTuber ama ha ahaadaan inaan soo wareysano maanta waxayna la joogo my brother alfanaan Safwan Hala my brother su'aasha kooda ku weydiinayo amarna diyaar u tahay diyaar waa su'aalashan kala adag ku ugu jilcana ku soo yiraahdo kuwa adagna xagga dabada igu dhigaysa hey soo marka waa fahmi kartaan kuwa adag gadaal jiraan marka my brother Safwan halku ku dhish waxaan ku dhashay magaalada Berberaan ku dhashay Hargeysana ku soo koray marka Hargeysana ku soo kortay Berberaan ku dhashay laakiin Hargeysana ku soo koray laakiin noloshaada meesha ugu badan inta Hargeysa weeyaan Hargeysa reer Hargeysa aad baan idin salaameynaa su'aasha labaad way YouTuberadu ma daawata keena is leedahay favorite kaaga waa YouTuberada Soomaaliyeed waan daawadaa horta YouTuberada channel badan ku xiranay way jiraan Darisla kamida waxaan daawadaa inta badan Darisla waan daawadaa laakiin waxaan daawadaa waxaan jecelay barnaamijyada ogaalka dunida iyo barnaamijka Daris kuwaasan yar daawadaa laakiin YouTuberada caadiga ee soo ka saaxiibkay jooga waxaan waa Darisla weeyaan Darisla daawata number 1 okay marka ay timaado YouTuberadu marka heestaada ama video-kaaga reaction laga bixinayo si qaldan ma laga yaabaa inaad ka xanaaqdid ama maaragtay dareenkaaga u bedelo war muxuu iga rabaa personal you attack gareynay weliga kama xanaaq because wax kasta feedback bilayn aad marka feedback ugu soo gudbiyaan iyaguna qofta ugu tala galay inuu ama qofkaas ka caayo mooyaane inta badan YouTuberadeennu anu ma dhaliilayo wallahi way sheegaan waana runtoodu waxay sheegaan 100% marka ma dhaliilayo laakiin reaction caadi laakiin wixii hadii xuyeen wax koran waxa suuxin yahay wixii haduu saxsan that's all marka waxa ula jeedaa waxa u qaadataa in a good way in a positive way qaladka sadoo waa iska saxiisa positive oo qaata saxiisa dabcan wallah okay su'aasha kaleeto ma brother tan xogaa oo yara adag tahay waxayna ku saabsan tahay fanka Soomaaliyeed marka ay timaado fanka Soomaaliyeed lacag ma laga sameeyo guri ma laga dhisan karaa because su'aashaas dad badan ay soo weydiiyay oo off the camera anoona camera aan ku jirin banaanka joogo ba ay u yiraahdaan iyo fanaaniinta Soomaaliyeed lacag kama sameeyaan lacag waa ka sameeyaan maxay ka sameeyaan su'aalahaas way soo dad badan bulsho badan way is weydiinayeen dad badan oo nagu xirno hadana daawanaan way is weydiinayeen marka maadaama fanaanta experience u leedahay fanka heer ma laga gaari karaa sida fanaaniinta kaleeto oo lama geeni ka wataano oo horta ma oran karo sida kuwa Mareykanka iyo waxaas way noqon karaan laakiin fanka Soomaaliyeed laga sameyn karaa lacag guriyo laga dhisan karaa ninkii de ku dadaalaya oo ka sameynaya qasab income-ka ugu xoogan intuu soo gali karaa isleedahay wallahi de fanaanku kulba fanaanku sidii ku xiranta fanaanku haduu fanaan jecel yahay ayo dadku jecel yihiin oo taageerayaal leh horta dabaqii taaganaya de dhisan karaya guriyo iyo baabuur iyo xog iibsan karaya ma fahanti haduu sameeyo de tour Mareykan in Canada wadankii meelaha uu isku maro hal mar fanaanku yahay fanaan bulsho haysta lacag badan baa soo galay wala runta fiicana makes sense and ku sii yara socono fanka adi marka soo galaysa dhaliilo ma kala kulantay oo lagu dhahay waniyow waa ku yara cusubta oo runta ku sheegay ama cod macaan baan hayo dhaliilo kala ma kulmin qofka ay arkaa markaan heeso xidhan jiro aniga cod macaan tahay hees runta fiican Soomaa si fiican marka qofku haduu fanaayo cod macaan yahayna de qof xaasido ku yiraahdo ma aragtay dib u noqon mooyaane qofka ku arkaya wuxuu qornay hore u soconiyo marka wallahi ma arag musician igu yiraahdan iyo 14 baa tahay ama waxa weligii ma arag qofku hore u socon bari wala jiray cod macaan wala fanaaniinta hadda fanka soo galo kale ma dhigaysataa keebana is leedahay at least ninkan waa meel buu gaarayaa wallahi horta markan runta ka hadlo
ما dhageystanio heesooga wallahi ma dhageysto صح waayo raabka ma jeceli heesaadan dhageysaniniyo heesaad anigu xitaa macal kuwayga ma dhageysto macal kuwa ladkayga ma dhageysto wallahi fanaaniinta waaweyn baa iska dhageystaa badanka inay iyagoo meelaha ka baxayaan la kulmo mooyaan laakiin caadi ahaan uma dhageysto laakiin Sharma Boy oo kale waa fanaan waa inay yaro taalada dee waana qarqsaday halku marayaba marka hore u socon baan leeyahay yes hore u socbaa leena Sharma Boy isaga inamada kale raabaradaaba si fiican su'aasha ugu dambaysa waaye oo aan weydiinayo heesahaaga ma dhageysata may wallahi walaal ma dhageysto waa duubta kaliya wana fasaxda dhageysto heestada ma dhageysto heesta maano xifdiyo horta oo iyadoo ama aan cod duubay aan yara xifdiyo oo miisiga aan dhageysto mooyaane heesaan la intaan meel ka shido ma dhageysto horta runta fiican markii aa imaatid heestada meel ay ka shidan tahay oo dad kale ku raaxaysanayaan waxaan dareemaa ano yara dareemaa inaan anu heesay horta dareemaa inay gaba yara qajla okay yara qajla walaal marka yani codkaaga marka baqashid because isku mid ma boogtaa waxaan dareemaa inaan horta anigu heesayo sax inan baa igu tiri maalin walaal Safaan oo marka heesayso maxaa dareentay baa igu tiri moogta waxaan dareemaa baan ku dhinaanu heesayo horta anu baa heesaya laakiin xogaa shucuurteedu wax yar noqotaa si qof yara khajilsan oo kale oo xishoonayo iska xishoonaya marka hees baxaysa maar aad baa baasata my brother thank you so much inshallah thank you Safwan thank you my brother see you the next episode my beautiful people that was it Who's